ma laga yaabaa xajka inuu waajib kugu yahay oo aadan ogeyn xajka goormuu igu waajiba waa su'aal u baahan in laga jawaabo labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak bilaabayna silsilo cusub oo aan ka sheekeynayno rukni ka mid ah أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا لا الركن ياسنا وحاواي ركن الشنات أو كمده أركان الإسلام تيركي إسلام كتاجن تهي وحجك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجلتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة أفراد وبرنامج كيها حجك إيو أحكامتيس ولا لي الحلقة دي هروحان كسو شيكيني طبعا فضلي أولي هي حجك كدبنا سؤالا اسويديني وحان رحم ملغيابا حجك إنو واجب كويهي أو أهدن أوغين نعم أديقي فيرسني اسم ملغيابا حجك إنو واجب كويهي مرهر واجب كونغ لكن أهدن أوغين ما أنت أيا أوغان دونتا إن شاء الله تعالى حجك إنو واجب كويهي إن كالو سفي عن أدقيسو كان فائديسو رالها كالاني وسي قد بخير الله كسيه. شروط وجوب الحج قفك إنو حجك واجب كن نقض شروطها لاقا باهنيهي أما وحيالها لاقا باهنيهي إنو هايستو أما قارو وامحي شردق أوغوه الرئيو وقفك حجك أوغو واجبايا وحاوايا إنو يهي قف مسلم قف قال هدا أركت سو حجي لما دهاي لكن دين إسلام كأيان أوغيرينا كدي مركو قاتو أيان صلاة إيا صونك إيا زكاة إيا حجك أشيغينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو معاذ يمن أدري وحوير وحاد أتجدونتا قوم أهل كتاب وحا أوغوه الرئيسيدو أوغيري سهر نقطو لا إله إلا الله markay qaataan kadib salaada soonka zakada xajka saas ayaa loogu wadaa marka shardiga labaad qofka waa inuu yahay qof qaangaar ah taas macnaheeda waxa waaye cunuga yar aan wali qaangaarin wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba hadduu soo xajiyo xajka kama dhacaayo markuu qaangaaro waa laga rabaa laakiin waalidkiisa wuxuu helaa ajr هذا عنقيقة هدان كحيو أو حجك أنجيو حجك أوسمي أجر كيسا واهلا والد أهان إلهي نوحا لغيابا عنقي إنو يوحفديو أيا لغيابا لكن كاس كمرديسو مركوين هذا إنو حجيو إذن شردق لبات وحاواي وحجك كواجبا إنا تهي قف قاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوي رفع القلم عن ثلاث صدح قلو قلنك واللغا قادي وحكستي سميان أجر إي دنبيبا لوما قرايا وحا كمده عن الصبي عنقير حتى يبلغ إلى كقانقارو حديث سعيد الترمذي وجرا شرديق صدحات قفك وإنو يقف عقل له قف والا حج واجبكم معهن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحويري رفع القلم عن ثلاث صدح قلو دم قلنك واللغا قادي دنبي هدي سميانا لو مقرايو أجر هدي سميانا لو مقرايو وحاكمدي عن المجنون حتى يعقل قف كوالا إلى عقل يسا أو أصو نقنايو إلهي وعقلك هنك قادي شردك أفراد الاستطاعة قفك إنو حجك واجب كن نقضى وحاواي إنو أوذو haddaba inuu awoodo maxaa laga wadaa saddexdan arrin haddii lagaa helo mustatiica tahay oo xajka waajib ayuu kugu noqonaa tan koobaad waxa waaye qofka inuu awoodo jismi ahaan caafimaad uu qabo socon karo dhaqaaqi karo macnaheeda waxa waaye qofka hadduusan caafimaad qabin xanuunsan yahay ama duqoobay uusan dhaqaaqi karin faras fuuli karin gaari fuuli karin diyaara fuuli karin xajka waa ka dhacaa faamilkiisa marka qofkaas oo kale way ka soo xajin karaan hadduusan awoodin lana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalin nin ayaa u yimid wuxuu ku yiri yaa rasuul allah aabahay
nin weyn waaye gaarina ma fuuli karo afa axuja canh ma ka xajiyaa nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nacam ka xaji xadiidkan bukhaara soo saaray tan labaad qofka istitaacat ilmaal xoolo inuu leeyahay waaye xoolo inuu leeyahay waxaa laga wadaa xajka wuxuu ku aado uu ku soo noqdo kow faamilkiisa uu ka tagaayana intuu maqan yahay wax ku filan inuu aga taga waa intaasaa laga rabaa wax badan ee akawnka kugu jirta ma ahan xajka waxaa ku tagtid oo ku soo noqotid iyo intaa maqan tihid dadka mas-uulka ka tihid waxay biilan karaan haddaa intaas haysatid xajka waajib ayuu kugu yahay tan saddexaad gabdhahay khusaysaa gabadha haddaysan helin maxram xajka waajib kuma aha ama nin qabo inuu raaco ama walaalkeed ama aabbaheed ama cunugeeda inuu raaco waxaa laga yaabaa inay tiraa aniga nafteyda un baan awoodaa qofka kale kama bixin kari idan waajib kuguma waajibin maxram la'aan ha xajinin nebi maxamed sala allahu calayh wasalam maalinin ayaa u yimid wuxuu yaa rasuulallah aniga waxaa ligu qoray qaswadaas inaan aado xaaskaygana waa soo xajinaysaa maxaa sameeya rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu yidhi jooji ee bax xaaskaaga raac xaaskaaga la soo xaji idan waxaan ka faa'iidaysanaynaa xadiidkan gabadha haddaadan haysanin maxram gurigaaga iska joog ilaahay kuguma ciqaabay maxaa u soo xaji weysay kaas maxrama u baahan istitaacada waxaa kaloo soo galaayo wadadaa maraysid inay sayf tahay waxaa kaloo soo galaayo sharci aa ku xajisid inaa haysatid haddana sharciga ku xajinin haysatid ama wadadaa maraysid ay sayf aheenna iyadana istitaacadiisa hoosgelaysaa waxaa rabaa inaa isweydiisho su'aal marka afarta arrinaa hadda sheegay adiga ma kugu tabaqantaa muslin ma tahay haa leedahay ayib qof qaangaar ma tahay haa caqli ma leedahay haa muxaadaradan ba dhegaysanooyayba ma awoodaa haa idan xajka waajib uu kugu yahay haddaa gadaal u dhigtini dembiyaa gelaysaa lana xajka waajib cala alfawr waa walaysa cala taraakhi inaa xajiso qofkii intaas laga helo inuu xajiyo waajib waaye qofkaan xajinina waa dembiile su'aal kale marka xajka arkaantiisa maxaa waaye tiirarka xajka oo haddaa mid ka mid ka tago xajkayga uu waxba ka jiraynin maxaa waaye haddaa rabta jawaabtaas inaa ogaatidna xalaqada soo socota iyo ku dhaafin barnaamijkiia xajka iyo axkaamtiisa ilaa xalaqada kale laga gaara waxaa lagaa rabaa kow dhagayso ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbi bakhiil ha noqonin jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله